munaasabadan oo ahayd mid seher sare loo soo agaasimay isla markaana lagu calay masaaraya gudoomiyaha dhalinyarada beesha Dagoodi ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socda labada gole ee dawladda, marti sharaf, waxgarad, culimaa diin iyo ururada bulshada ayaa waxa halkaas hambalyo ay bogaadin loogu jeediyay gudoomiyaha dhalinyarada beesha Dagoodi oo maanta calay masaarkiisu ka dhacay Muqdisho. Waxaana qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay halkaas ay ka jeediyeen hadallo qiiro leh kuwaasi oo sare u qaadaya hanka dhalinyarada beesha Dagoodi. waxa waaye waa wax taariikh oo la ogyahay markii maanta inaan dhahno masarri iyo Dagoodi cilmigu qeymo ku fadhiyo waxa qeymo ku fadhiya inaan wax qabsano warkii waa dhinaca liigi jooga soo gaabiya leeyahay waa soo gaabinaya arrimaha ayaka dhalinyarada waxa la rabaa in ay kaashadaan walaalahood gaal jecel marka waxaan kala dardaarmaa dhalinyarada iyo maamulkooda annaga waa idin garab istaagayna waana idin garab istaaganahay waxaan rabaa saacatul wasiir mudana gadoomiye soo dhawow si lagu caleema saaro sidoo kale waxaa gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada ee maanta loo caleema saaray beesha Dagoodi inuu wax badan ka qabto sare u qaadida aqoonta tayada iyo sidoo kale dhalinyarada si ay dalkooda wax ugu qaban lahaayeen in nin kasta oo idin kamid ah awoodo hal qol inuu dhisto halka asalka uu ka soo jeeday gobolku doonaha noqday inuu ka dhiso ku dhiirigelisaan nin kasta oo dibadda jooga nin kasta oo Kenya jooga ku dhisaan dhanka kale sidoo kale waxa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Cabdullaahi Sheekh Qaloocow kaasi oo tilmaamay in loo baahan yahay in dhalinyaradu ay yeeshaan hoggaan isla markaana beesha Dagoodi ay kamid tahay beelaha Soomaaliyeed dawladda federaalkana qaab dhismeedkeedu markii ugu horeysay uu ahaa dhanka beelaha isla markaana ay si weyn u taageerayaan garab istaagi doonaan gudoomiyahan cusub ee maanta loo caleema saaray beesha Dagoodi dhalinyarada isma la helay dhalinyarada tiradan la hadalka joogta halka joogta laakiin se waxay xaqiijisay dadkan inay joogaan dalka joogaan weliba gaar ahaan ama farxad gaar ah degeliseen sheekayar markaa la ku daro odaya waxaa jiray 1960 markii xubnimada la qaadanayo dhalinyaro la hadlay wuxuu yidhi rasuul soo hadlay waxaad tihiin madaxdii berito ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada beesha Dagoodi oo maanta lagu caleema saaray magaalada Muqdisho Maxamed Macalin Yacquub kaasi oo tilmaamay in caleema saarka iyo xilka ay u doorteen beeshiisa inuu si hufan uga soo bixi doono isla markaana ka codsaday dhalinyarada beesha inay garab ku siiyaan sidii uu horumar u gaarsiin lahaa ayaa waxa la soo hormariyay caleema saarka dadku waxay u barteen inuu caleema saarka u dambeeyo waxay u maleeyeen in barnaamijku u dhamaaday raali ahaada barnaamijku waa dhow yahay waa gabagaboobi doonaa goordhow إن شاء الله وليها نودا دين دونه عن دول قادنو كلموين كدمن عن دميسترنو عن كفايديسن إن شاء الله خبرات هذا معلوم بس إنتي محمد أحمد كيني سوم نيوز تي في مقدشو.